Mr. Pastor gobolka Gado oo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya kana mid ah dawlad goboleedka Jubbaland waxaa ka jirta xiisado siyaasadeed oo Soomaalida dhexdeeda ah laakiin waxaa dad badan ay aaminsan yihiin ama la og yahay inay jirto ciidamo Etoobiyaan ah oo dhaqdhaqaaq iyo qulqulutooyin lagu eedeynayo inay ka sameeyaan gobolkaasi Gado gaar ahaan magaalada Doolow arintaasi ma jirtaa haddii ay jirtana maxaa ka lifay? Yes, I have heard that there are complaints that the Ethiopian force have taken part in that incident, that unfortunate incident. waan maqlay inay jiraan cabashooyin sheegaya in ciidanka Ethiopia ay qayb ka ahaayeen dhacdadaasi oo ahayd mid falxun. laakiin waxaan ku xaqiijinayaa in ciidanka Ethiopia aysan qayb ka ahayn dhibaatadaasi. dagaalku wuxuu u dhaxeeyay ciidanka dawladda iyo ciidanka Jubbaland wuxuuna dagaalku ka dhacay meel u dhow xerada ciidanka Ethiopia. ciidamada Ethiopia waxay qaateen door dhexaad ah intii uu dagaalka socday ilaa dhamaadka. waxaan u malaynaynaa inay jirto isfaham la'aan. Ethiopia weligeed ma sameeynin inay caawiso dhinac ka mid ah walaalaha dagaalamaya. khilaaf u dhaxeeya dawlad goboleed iyo dawladda federaalka waana arrin aanan marnaba aqbali karin mana habboona inay dhacdo. waxaan aaminsanahay in khilaafka lagu dhammeeyo si nabadeed laakiin nasiib darro dhacdadaasi waxay dhacday iyadoo ay joogaan ciidankeenna. cabashadu waxay ahayd in ciidanka Ethiopia ay weerareen ciidanka nabad sugidda qaranka Soomaaliya NISA laakiin arrintu sidaasi ma ahayn. waxa dhacay in ciidankeen ay gargaar siiyaan xubno dhaawac ah oo ka tirsanaa NISA kadibna ay dib ugu celiyaan. waxaan aaminsanahay in khilaafka lagu dhammeeyo si nabadeed laakiin nasiib darro dhacdadaasi waxay dhacday iyadoo ay joogaan ciidankeenna. cabashadu waxay ahayd in ciidanka Ethiopia ay weerareen ciidanka nabad sugidda qaranka Soomaaliya NISA laakiin arrintu sidaasi ma ahayn. waxa dhacay in ciidankeena ay gargaar siiyaan xubno dhaawac ah oo ka tirsanaa NISA kadibna dib ay u celiyaan. waa sheegashooyin been abuur ah oo ay fidiyeen kooxo dana gaara ka leh inay dhaawacaan ama waxyeeleeyaan xiriirka u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya. annagu halkan uma joogno inaan caawino cid gaar ah ee waxaan u joognaa inaan taageerno dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed. ciidankeena waa ciidan nabad ilaalin ah ma aha kuwa taageera dawlad goboleed ama maleeshiyaad. waxay ciidankeenu halkan u joogaan inay Soomaaliya ka caawiyaan xalinta caqabadaha amni. sidaasi darteed ciidankeenu kama qayb qaataan dagaalada qaldan ee noocaas ah. waa isfaham la'aan oo keliya. labada dawladeed ee Ethiopia iyo Soomaaliya si wanaagsan ayay uga wada hadleen arrintan waxaana isla garanay inaan baaritaan ku sameeyno sababta keentay shaqaaqadaasi. dawladda Soomaaliya hore ayay u magacaawday guddi farsamo. dhinaceena dawladda Ethiopia waxaa laga filayaa inay iyaduna magacaawdo koox farsamo si aan u sameyno baaritaan wadajir ah iyo sidii ay dhacdadu u dhacday waxa dhacay iyo waxa sababay. sidaasi ayaana arrintaasi si nabadeed loogu xallin doonaa loona hubin doonaa si aysan mar kale u dhicin. So we will settle this issue in a very peaceful manner so that it can never happen again.